kase waa dharar shaqe waa dhidid kase horumarkeena dhiman nolol dhammaysa yaqsa aan ku gaanidhisaay waa dharar shaqe waa dhidid kase waa dharar shaqe waa dhidid kase horumarkeena dhiman nolol dhammaysa maraya waa qalab yar oo kooban oo macnihiisu yahay qalabkii shirkadda ka dhisi lahaa qaybtii dufcaddii koowaad oo u diyaarin lahayd meesha qalabka waaweyn la dhigayo ee shaqada biriga ah wadada qalab gaadiidkaas sii mari lahaa inay hawshaa qabtaan ayay weeye gaadiidkii cuslaa oo shaqadaa qaban lahaana ilaahay idankiisa asbuucyada soo socda ayuu waxa waa soo raran yahay ayuu imaanaya waxaan kaloo u mahadcelinayaa dhalinyarada oo ganacsatada oo isku hawlay meel fiicanna hadda ka maraya wakhtigooda iyo dhaqaalahooda labadaba inay gashaan in garaaca dekad noqoto oo wax ka soo baxaan baan u mahadcelinayaa aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaannu leenahay ha laga soo qayb galo haddaannu annagu nahay shacabka reer buntland meel kastoo aan joognaba naf iyo maal waa gelinaynaa maamulada jira oo ama soomaaliya ha noqoto ama buntland ha noqotana inay ka qayb qaataan oo arrintaa maanta garacad dekeddeeda laga qayb qaato oo laysugu tago ayaannu ayagana Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mustafa Derya Mumcu, TTN Construction Company Project Manager. Bismillah, magacaygu waa Mustafa Derya Mumcu. Waxaan ahay mas'uulka TTN Construction Company projectigan mas'uulkiisa ah. İlk önce Garahat halkına, askerlere çok teşekkür ediyorum. Göstermiş olduğu sıcak ilgiden çok memnunum. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan dadka reer Garaacad askarta qaabka quruxda badan ay noo soo dhaweeyeen oo ay noo kaalmeeyeen noo saacideen. ay sugaysay waa maalin Soomaaliya ay sugaysay waa maalin dadka deegaanka Garaac ay sugayeen mudana ku taameeyeen way haddii la oran jiray Garaac in deegaan laga dhisaahay dad shacab ay dhistaan isku tashadaan hadday riyo ahayd maanta run weeye waan idin muuqataa runtii waxa uu yiri gudoomiyaha Cabdixamiid wixii rag ku tashado xaranaya dumarkan lagu daro rabbina aqbala waa ribooba waxa Soomaalidu tiraahdaa oo kale rag tashaday cirwatooda kala takalabad marka waxaan runtii kalsooni ku qabaa mashruuca maanta bilowday guusha ku bilowday quruxda ku bilowday inuu guul ku dhamaan doono quruxda ku dhamaan doono insha Allah. Biz bu projeye TTN olarak başlamış bulunuyoruz. En hızlı ve en iyi şekilde yapmayı planlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi biz bu projede ilk önce yolların yapımına başlamışız. Aniga ku hadlay afka shirkadda TTN waxaan idin sheegaynaa inaanu si dhaqso leh u bilownay hawshii si dhaqso lehna aan ku wadi doono hadartaan hawsha si habsami leh inoogu socoto. Ocak yolların yapımı devam etmekte. Ocaktan
denize kadar olan yollarda yapımına başlamış bulunmaktayız. waxaa hadda inoo bilaabatay jidkii isku xireeyey meesha dekada laga dhisi doono iyo meesha aan kasoo qaadan doono alaabta wax lagu dhisaya dhagaxa iyo meesha dhagaxaan kasoo jabsan doono ilaa meesha dekada isku xirta dhabooyinkeedu hadda inoo bilaabatay oo inoo socota. Yollar devam ederken bir noktada yaşam merkezinin kalıcılığına devam etmekteyiz. annagoo wadna shaqada dhabada haddana waxaa inoo socotaa meeshii kaydka inoo noqon lahayd marka dekada la dhiso guryaha laga dhisi lahaa oo kaydka noqon lahaydna shaqadeedii waa wadnaa. Limanın ilk bölümünün 22 ay gibi kısa bir süre içinde bitirmeyi planlamaktayız. shaqada fayskeeda koowaad waxaan rajaynaynaa inay noogu dhammaato muddo 22 bilooda. Somali kardeşlerime çok teşekkür ederim. waa deegaan aad iyo aad u qurux badan aniga maanta iigu horreysay gaalkacyo xagga sare uma dhaafin xagga hoose waa arkay laakiin kor uma aad iyo aad waa dhul qurux badan oo runtii hunguri baabana galo war halkan ma iska soo degtaanba quruxda iyo badda iyo hawadaba aad baanu idinku mahadnaqaynaa wakhtigoo yar isku tashiga aad isku tashateen waa wax ku dayasho mudan waa wax runtii aad iyo aad loogu farxo xooggeennu xoog dalkeenna waxaan ku dhisi karnaa xooggu inagu inagu jira lacagta iyo xoogga iyo caqliga iyo mid walba dalkeenna iyo dadkeennu ku jira waxay u baahan tahay hoggaan fiican iyo dad intay isku tashadaan sidaa aad yeesheen aad iyo aad deked oo daraasad dheer lagu sameeyey oo lagu guulaystay natiijo fiicanna ay soo baxday waxay soo madhay in heshiis laga galo kambaniga dhisi lahaa oo hadda goobjoog waxaa heshiis laga galay kambani kale oo ka hadlay goobta oo ah kambani consultanty ah oo hawshaan wadi doono hagi doono haddii ilaahay idmo waxay soo madhay in loo aruuriyo dhaqaalihii lagu howlgeli lahaa intaas oo dadaal ah oo muddo ku dhow 2 sano socday waxay dhashay maantay inaynu isugu nimid in ay dekadii bilaabatay oo guul weyn ah ilaahay baa mahadda iska leh iyo intii ka soo shaqaysay oo maskaxdooda iyo cilmigooda iyo xooggooda iyo dhaqaalahooda gelisay intaas ka bacdi waqtigu waa gaaban yahay maqribkii baa dhow deked waa hanti ummadeed waa hanti isticmaalkeeda aan la kala xigin sidoo kale waxaa la mid ah eeraboorada iyo waddooyinka dekadda garacad haddii ilaahay idmo oo lagu guulaysto oo muddadaas kooban ay ku dhisanto waxay noqon doontaa meel ummadda Soomaaliyeed ka dhaxaysa isticmaalkeeda oo aan la kala xigin. arrimaha gudaha ee Puntland Cabdullaahi Xaashi Qoobdeero iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Xaawo Yuusuf Axmed ayaa iyagana halkaasi ka hadlay. runtii wax in badan laga soo shaqeynayay oo maaragtay lagu tagay kormeero kala duwan garacad ay hawshan maanta inoo bilaabanaysa ay ku timid aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa cid kasta oo gacan ka geysatay aad baan uga mahad celinaynaa runtii farxad bay noo tahay tallaabo wanaagsan oo la qaaday ayay noo tahay hore ayaanuna u soconaynaa dawladda dhexe Soomaaliya waxa ay nagala socday oo aanu doonaynay inay nagala soo qayb galaan furitaanka iyo dhagax dhiga insha Allah taala ballan adag baanuna ka lahayn insha Allah way iman doonaan. Amir Maxamed Yuusuf Iimaan Cabdullaah Maxamed Guray Garaad Maxamed Cilmi Shirwac ayaa iyaguna soo dhaweeyay isla markaasna u duceeyay hawsha la bilaabayo ee dekada magaalada Garacad. Gudiga hawshaas maartay gacanta ku haya ganacsatada gobolka iyo guud ahaan Soomaalida oo dhan waxaan leenahay aad baad u mahadsantihiin. kaliya waxaan oranayaa hadalka waa la yiri dhammaan odayaashii intii horeysay baa tiri intaas baan ayadeena anagu waxaan soo dhaweynaynaa hawshan balaaran oo socota qalabkan hordhaca oo maanta gaalkacyo marayo Garacad u socda waxaanu ugu soo baxnay inaanu ogeysiino wixii inay riyo ahayna wax runa noqdeen
dekadii garacad la dhisayo haddii alla idmo haatan loo socdo bilow ay tahay qalabkii kalena imaanayo doornimay ahayd waxa la haybiyaba buu yidhi cali xuseen abwaankii weynaa wax la haybiyaba dowladnimo waa la soo helaya ha yeeshee sidii loo hantaa hadalka joogaayo dekadii garacad maanta waa wax maqan maahan waa waxa dabadeenna yaalla oo halka yaalla qalabkan oo dowladda Puntland dhammaanteed gaar ahaan gobolka Mudug muddo dheer u sugayay inaan maanta halka iyagoo nabad qaba iyo annagoo nabad qaba isugu nimaanno waa guul xag Ilaahay ka sugnaatay mashaariicdan waa weyn oo hadda laga sheekeeyay kuwa hadda socda iyo kuwa imaan doonaba intaba dadaalka dadweynaha iyo dawladda oo iskaashaday ay ku hirgaleen inta qabsoontay inta dhimanna intaas bay ku hirgeli doonaan haddii Ilaahay baad ogtihiin mashaariicdaas bilowgeedii xukuumadihii naga horreeyey ayaan uga mahad celinaynaa oo waqti badan geliyey haddii ahaan lahayd aeroboortka haddii ahaan lahayd dekedda haddii ahaan lahayd waddada iyo kastamka intaba dhulka dhisa walagu dhasho waloo dhasho waloo dhinto lagu dhaawacme walagu dhasho waloo dhasho waloo dhinto lagu dhaawacme walaalayaal dhulka dhulkeena hangeesanee dhisay cankula dhisay dhisay awada